السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسو دوادا موضوعنا مانتا عديد كعصوب تاهي كنالك فضلا سبسكرايب نوصار كنا صوبير كان ميد نوقع أصحابتك وحدان جانال كويقة برشدة كان بلالكنا فرصي برنامج جدو مركاي سودا عنبا آدو لسعوتي داوضها وقورينا موتين حتى الموضوع عن سي شير كرين كرتانا سي شير كرين وصاحب هذا كلا لوذاك موضوعنا maanta haddaadan diin haysan waxaad noqonaysaa qof maskaxda caydhka waxay mahadi u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala ee muslim inaga dhigay inteena daawanaysa iyo inta muuqaalku daawan doontaba موضوعنا maanta wuxuu la xiriiraa dad adduunka ku nool oo haysta diime aan naftooda u anfacayn sida muuqaalada idinka muuqata ninkan wuxuu muddo gaaraysa 1 sano in ka badanba jirkiisa ku waday qaliin sidoo kale jarjaris isagoo ujeedkiisu ahaa sidoo uu noqon lahaa xayawaan ama qof caan ah subxaanallah nidan aan arkayno maalinba maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa waxyaabo ka yaabiya balse inaad jirkaaga qaliin ku samayso waxay u baahan tahay lacag maskax iyo sidoo kale digtooro khubro ah inaad hesho waxaa la sheegaa in markii qaliinka lagu sameynayay ay ku kacday lacag gaaraysa $100,000 mar la weydiiyay sababta uu sidan u sameynayo ayuu ku sheegay inuu ilaa yaraantiisii xiisayn jiray inuu mar jirkiisa ka dhigo bahal oo kale ama xayawaan haddana wuxuu ku guuleystay ayuu leeyahay inaan iska dhigo wuxuu hadalkiisa sii raaciyay in 24 saacba hadda caafimaadkiisa lala socdo xagga marka hore aan ahaa qof caafimaad qaba balse waxyaabaha igu dhibta badan ayuu yiri mar walba in la jeekimo caafimaadkayga guud ahaantiis oo laga warhayo daqiiqad mar uu ka hadlayay hadal haynta bulshada uu ku dhaxnool yahay ayuu wuxuu sheegay in isaga la soo raadsado oo sawir lala galo xagga qaar kalena ay wadamo kale uga soo safraan si ay lacagna ugu bixiyaan sidii ay u arki lahaayeen dad badan ayaa guriyihiisa ku soo booqda sida ay sawir ula galaan Facebook ay ku helaan like iyo comments badan wuxuu yiri adduunyadan aad arkayso waxaa muhiim ah inaad waxyaabo cusub aad ku soo kordhiso balse tan oo kale waxyaabo cusub maaha waa waxyaabo Allah laga magan galo dadka noocan oo kale dunida ayay ku badan yihiin waxaad arkaysaa midba midka kale uu ka sii daran yahay موضوعنا maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaya balse niyada waxaan ka ilaa anigu la kulankaaga Allah ayaan ka magan galay subxaanallah intaas ayaan ku soo gabagabeynaya موضوعنا maanta ee saaxiibeel fi amaanillah